wardegdeg ah ciidamo fara badan oo weerar culus ku qaaday hooyga Muqdisho uu ka degan yahay hogaamiyaha xisbiga Himilo Qaran Sheekh Shariif Sheekh Axmed wararkii ugu dambeeyay go'doon la geliyay hogaamiyahan ayaa sidoo kale muuqaalkan idinku wadaagi doona ciidankan waxa hogaaminaya taliyaha booliska gobolka Banaadir Macalin Mahdi waxayna wararku ay sheegayaan in wiil uu dhalay Xasan Sheekh Maxamuud uu qayb ka yahay saraakiisha hogaaminaya ciidamadan hareeyay isla markaana weerarka ku qaaday hooyga Muqdisho ay ka degan yihiin xubnaha mucaaradka wararkii ugu dambeeyay ayaan sidoo kale muuqaalkan idinku wadaagi doona intaan u gudogalin warbixintaasi oo faahfaahsan ka codsanaya daawada inaad muuqaalka la agsaarto sidoo kalena YouTube-keena subscribe saarato si aad u hesho wararka iyo warbixinada halkaan ku baahino xaaladda cabsi ayaa laga soo warinayaa gudaha caasimadda Muqdisho kadib markii ciidamo fara badan la dhoobay guryaha ay degan yihiin xubnaha mucaaradka kuwaas oo maalmihii ugu dambeeyay wada abaabul ka dhan ah dowladda federaalka Soomaaliya xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ee la magac baxay madasha samata bixinta Soomaaliyeed ayaa hooygooda waxaa la dhigay ciidamo fara badan kuwaas oo doonaya in aysan albaabada ka soo bixin xubnaha mucaaradka kuwaas oo kala Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale Xasan Cali Khayre xogtaan helay ayaa sidoo kale waxay sheegaysaa in ciidamadan ay hogaaminayaan wiil uu dhalay Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale taliyaha booliska gobolka Banaadir Macalin Mahdi wararka ayaa intaas waxay ku darayaan in cabsi xoogan laga dareemayo qaybo kamid ah gudaha caasimadda Muqdisho gaar ahaan hooyga ay Muqdisho ka degan yihiin xubnaha mucaaradka la magac baxay madasha samata bixinta Soomaaliyeed ayaa abaabul xoogan oo ka dhan ah dowladda uu hogaamiyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud maalmihii ugu dambeeyay ka waday gudaha caasimadda Muqdisho iyagoo horay ugu dhawaaqay banaanbaxyo ka dhan ah dowladda uu hogaamiyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud mucaaradka ayaa bilaabay in banaanbaxyadan ay ugu magac daraan barakicinta dhulka dadka shacabka laga kiciyo iyagoona eedan culus u jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud shacab fara badan ayay isugu keeneen hooygooda kuwaas oo ay ugu qabanayaan xalfado iyagoo kicin dadweyne ka wada gudaha caasimadda Muqdisho mucaaradka hadda jira ayaa dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay kaga hor imaanayaan waxyaabaha siyaasadda heer iyagoona kicinaya dadka laga barakiciyay gudaha caasimadda Muqdisho goobaha kala ah Daynile Sinai sidoo kale Tarabuunka dadka degan Tarabuunka ayaa loo qabtay xalfad iyagoona xalfadaasi ay ka soo qayb galeen dadyo fara badan kuwaas oo dhaliilsan burburunta dowladda federaalka Soomaaliya ay ka wado dhulalka ku yaala gudaha caasimadda Muqdisho sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha hogaamiye Xasan Sheekh Maxamuud ayaa horay ugu dhawaaqay in xamar aysan si ahaa doonin oo bisib isla markaana la burburi doono inta ugu muhiimsan gudaha caasimadda Muqdisho shacabkii ugu faraha badnaa ayaana mucaaradka ay abaabulaya kuwaas oo doonaya inay ka qayb qaataan banaanbaxyada ka dhan ah dowladda federaalka Soomaaliya ila Soomaaliya ayaa tiro dhowr jeer ah hakisay banaanbaxyada ay dhigayeen xubnaha mucaaradka iyagoo caawa ciidamo fara badan geeyay hooyga ay Muqdisho ka degan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ay kala Cabdiraxmaan Cabdishakuur Xasan Cali Khayre sidoo kale hogaamiyaha xisbiga Himilo Qaran ahna madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarka Sheekh Shariif Sheekh Axmed xaaladda Muqdisho ayaa caawa mid allow sahla tahay kadib markii ciidamo fara badan lagu arkay qaybo kamid ah gudaha caasimadda Muqdisho maalin madaxweynaha wuxuu yiri dadka la barakicinayo waa dadka obisooyinka degan ilaahay ku dhaarshay wasaaradda caafimaadka obasiiba miya kuliyadda caafimaadka obasiiba miya warshada daawada obasiiba miya meelaha hooyooyinkii dhallaanka lagu hayo MCS-yada obasiiba miya isbitaal waxaan ka hadlayaa meelaha caafimaadka maba ka hadlayaa dhismayaal kale waa meel kastoo caafimaad isbitaalka qaaxada lagu daaweynayo ma basiiba miya xarun caafimaad
oo badbaadsan ma leh xarun waxbarashaa u imaane xarun kaloo dadweynaha u imaane ma guryihii dalxiiska oo basiiba ma carwada oo basiiba ma kalluunka oo basiiba waa la tiri karaa ilaa gantaalahay daba socota oo hadda laga soo cabanayo war oo basiiba maaha waxaa ka daran warqadda ka soo baxda xafiiska madaxweynaha waxaa ku qoran dhulka waa laga maarmay dadka degan ha loo sharciyeeyo gobolka banaadir amar la siinaa waxaa la leeyahay dhulka waa laga maarmay wasaaraddii iskaleed wasaaradda ka maarmaysaa guri jaari deganta dadka ha loo sharciyeeyo horta wasaaraddii beenay sheegto oo guri jaari deganta dadkii deganayna waa laga barakiciyey ganacsatana waa laga iibsaday ganacsatada qaarna dhulkaas masaakiinta laga barakiciyey ayay iibsadaan wax ka damiir xun ma laha waa kuwaas damiirkooda qalalay waayo meeshaasay lacag ka raadinayaan ma lacagtaasaa lagu tanaadayaa ma lagu tanaadayo ganacsadii kalena maxay noqdeen inay dulmiga fiirsadaan ogow in hadda kahor u dagaalamayo xuquuq dadka madow oo Martin Luther King la yiraahdo Nelson Mandela waa laga sheegay markii uu la dagaalamayo cunsuriyadda wuxuu yiri kuwa dulmiga nagula kacaya waxaan nooga xanuun yarayn kuwa nagu daawanayo aqoon-yahanka professorka jaamacadda ganacsatada sheekha caalimka ya dadka bulshada qaybaheeda kala duwan ee dadka la barakicinaya daawanaya kuwaas waxay kama xanuun yara ogow kuwa dadka barakicinaya kama xanuun yara dulmiga ninka kugu sameeya iyo ninka kugu fiirsadaa waa isku mid walaalow maxaa tarti war shalay markii biyabaxada dhacaysay waa gurmanaysay biyabaxada markaa dhacaysay dadka biyabaxada waa u gurmanaysay soo maaha dadka abaaraha waa u gurmanaysay Soomaal lacaga u aruurinaysa walaalow dadka ganacsatada oo shirkadaha waaweyn leh oo hantida haystaan la hadlaya war kuwa la barakicinayo maxaad ugu gurmanaynin maxay kaga duwan yihiin hay-ad samafalaa furatay hay-adda hebel la yidhahdaa tiri shirkadaasaan leeyahay khayraadaan ka shaqeeya oo kuwan 147 kun oo qoys marka la barakicinayo riboodadii qaar aan aragno waxay sheegayaan waa markii ugu badneed ee al-shabaab ciidan qortaan waay gobolka banaadir waxayna ka qorteen waa dadkaas masaakiinta la barakiciyey international community-ga shalay kulankooda noogu dambeysay waa ogyihiin waa kala hadalnay safiirada mid